calaamadda gaduudan ayaa la siiyey kabtanka galmudug ciyaartooyga kabtanka u ah galmudug ayaa markaa qaatay calaamadda gaduudan muxyidiin cabdiraxmaan maxamuud waa tahay aan eegna sida ay wax u dhaceen markan ciyaartooyga kabtanka waa kaa qaladka ayuu samaynayaa kabtanka galmudug kubadda ayuu markaa soo saaray sidaas ayuuna ku mutay calaamadda gaduudan kadib markii uu gacan ku bixiyey kabtanka galmudug oo ka xun waxa dhacay ayaana iminka garoonka ka sii baxaya waa kaa xanaaqsan ciyaartooygii galmudug ee dhinaca daafaca kabtankoodii ayaana markan dibadda soo aadaya 9 ciyaartooy waa ciyaartooyga lambarka 6aad ee kabtanka u ah galmudug ninka qaatay calaamadda gaduudan rigoore ayaa markan u taalla gobolka banaadir si qurux badan cabdimajiid cusmaan ayaa markaa dabaaldegaya cabdimajiid cusmaan ciyaartooyga markaasi weerarka uga ciyaaraya gobolka banaadir ayaa markaa dabaaldegaya goolka labaad ee gobolka banaadir waa kaa nuur iraad cabdullaahi ayaa meel wanaagsan u dhigay cabdimajiid cusmaan ibraahim lambarka 5aad ee galmudug ayaa la dhaafay lugta bidix ayuu ku laaday cabdimajiid kubadduna qaybta sare ee goolka ayay ka dhalatay sidaas ayayna ciyaartu ku noqotay 2 gool iyo waxba in gobolka banaadir hoggaanka ciyaartu ay ku haystaan waalis markan gobolka banaadir gool 3 iyo waxba ugu dambayn taageerayaasha gobolka banaadir ayaa u dabaaldegay goolkii 3aad ee ciyaarta 3 gool ayay ciyaartooyda gobolka banaadir sii marsiinayaan ciyaartooyda galmudug tiradan goolashana waxay noqonayaan kuwii ugu badnaa ee koox tartanka ku jirta xagaagan looga adkaado